halkayga maanta inta lama dhahayo xabad qof burcada ku dhuftay qof oo meel kale ka imaado wadan kale ku dhuftay lama dhahayo dawladda Soomaaliyeed qof kamid ah walaalkay sirta saxiixay isla dawladda Soomaaliyeedna xaqiisa u soo dhawaysay habeenada kamid ah waxa dhacday anoo beerta banaadir meel la fadhiyo walaalkayga murugtiisa ay hayso isbitaal uu iiga jiro anigana meesha aan fadhiyo oo aan waxyaabadii qof oo loo jiifaa maanta ma asaga ina ag fadhiyo ag jiifta faa'iido ma keenaysa inaan wax u raadiyo asaga lagu daaweeyo ina meel galgasho waxa dhacday qolo waxa iimaadana wasugada waxa leegu dhahay waa ku soo wareysanayna arin ma ka wareysanayna soo bax meesha laga waday waayaan ku dhahay anoo isku waalin wax kale aan maadaama wasugada aan nahay idigaarada ay tuseen waa raacay waxa leegeeyay meel dhow godka jilco waa xabsi godka jilco leegeeyay 30 daqiiqo lagu soo wareysanaa lagu dhahay 30 daqiiqo wareysigii meeshan ka sugayay mobilka laga qaaday xareeya lagu dhahay waxa lagu xareeyay godkii xabsigii lagu xareeyay okay xabsigii markii lagu xareeyay subaxii qolobo ku wareysanayso qolobo waxa la horta laga wareysana horta barnaamijka la igu xiro wuxuu ahaa gabar ajnabi ahayd oo adiga American-needan filaa oo dalka imaaday ani Bilaal iyo group kale aan soo dhaweyn wax u sameeyay la kashmiin soo dhaweyn wax u sameeyay gabadhii waxyaabade oo khilaaf oo dalka micnaha shuruucdiisa wax ka baxsan iyo waxaas lagu qabtay anageena la soo raadiyay hal ma noo la raadiyay ma aqaan ani laakiin kaligiga in la wata la xiray okay wareysiga horta wareysi ka dheer oo ka weyn maalintaas dhan la wareysanayay waxyaabaha aan la yaabo ilaa hadda ahaa 30 daqiiqo ku soo wareysanayna leedahay anigana ilaahay amarkiisa xabsigaas daan kun sano ku jiri lahaa xataa waxa iiga darnaa ninka sariirta ii saaran walaalka arinjiis oo sariirta ii saaran oo markaas ana arin asaga aan u xalinay darteed meesha aan fadhiyo okay maalintii habeenkii waa taan bariyay oo bacda cisha amal meesha la geeyay maalintii xigtay waxa dhacday in oo wareysigii iyo wixii dheer kadib meesha waxa waay maamulka ugu sareeyay hor keenay si fiican ay soo dhaweeyeen maamulka iyo wixii waxay balan qaadeen inaan habeen dambe seexanay meeshaas oo arintaas noo soo afjarayo aadiniyad igu degtay qalbigayga wax ka dhex guuxaya arinta walaalkay marka anoo jaaniska ka faa'iideysanayo aan taliska meesha qofku ugu weynaa oo meesha fadhiyaan aan arinta walaalkay u sheegay sax degmadaas inay wax iiga qaban weysay iyo in maanta dee aan la dhibaataysanahay dhibkaas si fiican garab kale la haysan marka garab weyn xarigaas la xiray ilaahay wuxuu igu soo diray in maanta qofkii dambiilaha lagu soo qabto ma sha Allah garab la iga siiyay kaamirooyinkii la ii baaray gaarigii taargadiisa aan sheegay wixii oo dhan ala ii fududay iyo waqtiga aheed ala ii fududay okay waa zaidan ugu mahadcelina zaidan ugu amaanaya in oo maanta si walaaltinimo si dhiiga si damqasho leh inay iigu shaqeeyeen ma sha Allah hadalkayga hadayna aan ku noqdo aan saxo walaalkayga maanta dawlad dad kamid ah dhaawaceen oo jiifiyeen maantana dad dawladii kamid ah dawladda dhan ma ahan dad dawladda kamid ah cadaaladiisii ilaa hadda aanan siinin oo cadaaladiisii ku dheeleen waad dareemi kartaa dadka cadaaladda u raadiyo iyo dawladda macnaha meel waxay kala leedahay hay'ado badan isku shaqo ma ahan hay'ad dawladda kamid ah garabkii ugu weynaa adduunka ay siiyeen oo kaamirooyinka ii baareen oo walaalkayga ninkii dhaawacay ay ii soo qabteen isla hay'ad dawladda kamid ahna dambiilihii iga sii fasaxay dambiilihii dhibkaas aan u soo maray ilaahay uu ii soo mariyey inaan xarig u soo maro xabsi u soo maro saa xogta u soo helo oo dambiilihii ay iga sii fasaxeen marka waa wax cajiib ah horta wax cajiib ah maanta waa maqli jiray weligay qofkan muusan helin xuquuqdiisa qofkan waa laga jiiftay qofkan saan waaye maanta anagana dul taagantahay maanta in oo like xuquuqdeena lagu tuntay walaalkayga xaqiisa lagu tuntay laga soo qaadi waayo maanta qof muwaadin Soomaaliyeed oo maanta ninka iga fasaxay maanta uu ka soo qaadi waayay walaalkayga muwaadin Soomaaliyeed uu ka soo qaadi waayay walaalkiisa kale uu ka soo qaadi waayay wiilkiisa kale uu ka soo qaadi waayay
naftiisoo kale inuu ka soo qaadi waayo laga yaabo shilimaad yar ee cuneen kuwa saldhigga laga yaabo shilimaad yar ee cuneen inay kaamirooyinkaas igu baari waayeen kuwa kale wax isdaba marmariyeenna laga yaabo shilimaad yar ee cuneen inay dambiilihi u fasaxeen